السلام الله عليكم halkani waa aqoonsi ra'iisul wasaaraha xafiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa bayaan ka soo saaray qoraalkii baalmarsanaa dastuurka dalka ee ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu waa Maxamed Xuseen Roble uu arkay warbaahinta warqad baalmarsan shuruucda dalka oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxa uu soo saaray ku-xad gudubka sharciga inay tahay waraaqda ka soo baxday madaxweynaha ciwaankeedu ahaa hakinta awoodda wasiirka koobaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareer marsan dastuurka ku meel gaarka ah ee qaranka waxaana si cad uu uga been abuurtay qodobka 87 iyo 9aad ee dastuurka oo aan meelna looga xisin in madaxweynuhu faragelin karo awoodaha dastuurka ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa madaxweynuhu waxa uu si ku talagal ah ugu tuntay qodobka 9 iyo 9 ee dastuurka xarfihiisa a b a d e f h g kuwaasoo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinta ogolaanshaha fulinta xeerarka maamulka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka xisaab xirka dhaqangelinta shuruucda sugidda amniga iyo nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dowladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sarsare ee dowladda waxa uu sidoo kale madaxweynuhu jabiyey qodobka 100 oo uu ra'iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada maadaama uu yahay wasiirka koobaad madaxweynuhu waxa uu jabiyey qodobka 103 ee dastuurka ku meel gaarka ah oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa xaq u siinaya inay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra'iisul wasaare cusub iyagoo waajibaadkooda fulinaya si caadi ah madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 9 ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabanta maalintii xilka loo dhaariyay kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan isagoo isku dayay inuu soo farageliyo awoodaha dastuurka ah ee xukuumadda si uu u abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan haddaba iyadoo laga duulayo sareynta sharciga ra'iisul wasaaruhu isagoo soo xiganaya qodobka 4 faqradiisa koobaad ee dastuurka ku meel gaarka qeexaya in xukuumaddu u hoggaansamayso oo kaliya go'aamada waafaqsan dastuurka waxa uu cadeynayaa inaanay waxba ka jirin waraaqda sharci darrada ah ee ka soo baxday Villa Soomaaliya carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadaynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda madaxweynaha oo mas'uuliyadiisu ay ahayd inuu dalka ku hago doorasho daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaasi dastuuriga ah oo keentay in laga gaaro heshiis 17 Sebtembar 2020 oo ra'iisul wasaaraha loogu egmaday inuu fuliyo heshiiskaasi si ay dalka uga dhacdo doorasho lagu heshiiyay nasiib darro madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay'adaha amniga xafiiskiisa waxa uu maalmugdood bilaabay inuu dhaqaaqo fal liddi ku ah oo uu ku fashilnay doorashada jabinaya heshiis la gaaray waxyeeleynaya awoodda ra'iisul wasaaraha isla markaana abuuraya khilaaf baahsan taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiiggu ku daatay ee muddo kororsiga ahaa oo aanu weli ka tanaasulin madaxweynuhu waxa uu bilihii la soo dhaafay qaaday tallaabooyin uu ku carqaladeynayo awoodaha dastuuriga ah ee baarlamaanka hortiisa ku celiyay ra'iisul wasaaraha hogaaminta dalka ugu dhibay iyo doorashooyinka dalka waxa sidoo kale uu isku dayay burinta heshiiskii 27 Bil 2021 oo lagu soo afjarayay qalalaasihii ka dhashay go'aamadii muddo kororsiga ee madaxweynaha ee 12 Abriil 2021 si lamid ah xasaaradihii uu abuuray madaxweynuhu 25 bishii Abriil ee keenay kala jabka ciidanka qaranka iyo barkicinta dadweynaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya warqadda sharci darrada ah ee ka soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay inaan weli ka tanaasulin damiciisa ahaa inuu talada dalka ku celiyo colaad sakeeye ama si aan sharciga waafaqsanayn uu ku joogo xafiiska dalka ugu sareeya waa Villa Soomaaliya dardargelinta howlaha hay'adaha dowladda iyo doorashooyinka si waafaqsan qodobka 99 103 ee dastuurka ra'iisul wasaaruhu waxa uu faray dhammaan hay'adaha dowladdu in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee adeegista shacabka iyo ilaalinta danaha guud ee qaranka si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo 27 May 2021 iyo 22 August 2021 ee uu gaaray golaha wada tashiga qaranka ee ra'iisul wasaaruhu wuxuu faray dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed inay dardargeliyaan dhamaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyagoo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashada dalka uu galayo ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in ay fududeeyaan guddida doorashooyinka gudashada waajibkooda shaqo si loo dhammaystiro doorashooyinka dalka si waafaqsan qodobka 127 faqradiisa ee dastuurka qaranka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida si aanay
inaanay ku milmin arrimaha siyaasadda, dhowraan talinta sharciga ee hay-adaha dimuqraadiga ah iyo ilaalinta dastuurka, islamarkaana ay sii wataan waajibaadkooda ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka ku bogaadinaya sida geesinimada iyo nafurista leh ay ugu adeegayaan dalkooda, wuxuuna u xaqiijinayaa in xukuumaddu ay ka go'an tahay joogtaynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaag u ah geesiyaasha u taagan difaaca dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa inaan la aqbali karin in miisaaniyaddu qaybo ka mid ah hay'adaha dowladda loo isticmaalo si ka baxsan nidaamka hufnaanta maaliyadda ee dalka. Waana in hay'adda maaliyaddu ku taagnaato u hoggaansanaanta wareegtadii ra'iisul wasaaraha ee soo baxday 9kii bishan Sebtembar oo ku salaysnayd isla xisaabtan, daahfurnaan, runa. Sida uu qabo qodobka 3 ee dastuurka meelgaarka, ra'iisul wasaaruhu waxa uu xusuusinaya madaxweynaha inuu ilaaliyo mabaadi'da aasaasiga ah iyo kala socodsiinta awoodaha hay'adaha dowladda, joojina fargelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka. Tusaale waxa ku ah sida uu isugu dayayo inuu hor istaago cadaalad u helista kiiska sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax. Ra'iisul wasaaruhu isagoo ilaalinaya danta guud ee qaranka iyo nidaamka dowladnimada waxa uu u nasteexaynaya madaxweynaha in uu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka, jabinta heshiisyadii doorashooyinka, carqaladaynta howlaha xukuumadda, abuurista xasilooni darro iyo isku dayga sadbursi doorashooyinka oo ay tahay in uusan ula sinaado dhammaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo iyo ka talinta filla Soomaaliya. Ra'iisul wasaaruhu ugu dambeyn waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaansho, ilaaliyaan nabadgelyada, kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhammaystirto doorashooyinka dalka oo ah wadada kaliya ee furan si aan uga baaqsano dib u noqosho. Ra'iisul wasaaruhu isagoo uga mahad celinaya doorkooda waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamku inay ka gacan siiyaan xukuumadda dhammaystirka doorashooyinka iyo ka hortagga isku day kasta oo lagu carqaladeynayo doorashooyinka. Waxaanu si gaar ah u xasuusinayaa in il gaar ah lagu hayo shakhsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Ballanqaad xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay u ballan qaadaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in ay xoogga saarayso dhammaystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dowladnimo si hoggaanka dalka la wareego si nabadgelyo ah. Waraaqdaasi waxay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul wasaaraha oo jawaab ka bixinayay waraaq isla maanta ka soo baxday filla Soomaaliya iyo xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Halkani waa Aqoonsi TV. Isku day inaad ka qayb ka noqoto saaxiibadeena kumaamka ah ee halkan aanu dagal wadaagta ku nahay. Kulanti dambe sidaas iyo fi amaanillah.